السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سودولا إلهي وحبيبنا محيط حيرك كده حيو عيلك يعطى مسكين ما سنتهاي وحاجة مرة مرة بدن هذا في ستة متقارن حكي عمنا عيل بدن متقارن حكي عمنا عاطف بدن حكي عمنا وحاجة كل حريرو يروح عنتظر الحريرو وحن هرب مننا وعنتظر الحريرو بحياتها عنتوين كواحد الحريرو وكربوهيدرات أما الشوجر سكر قف هذه وعنا أنت بدن واحد سكر الحريرو جركيس مرة بيحوس سيارة كرتها عيلك وهتاس واحد عنتظر الحريرو ما بقول بقى عنتظر هذه كوب بدن هاي سكرتها iyo maxaa la glucose dufanka hadii ku badan tahay jirkaaga waxay ku badan kartaa butacna noqoto dhinaciis jirkan maxaa la xiriiro jirkan waxaa la xiriiro metabolism rate ama sida qof jirkaaga uu cuno u burburiyo waxaana saameyn ku yeelan kara jirkaaga uu cuno u burburiyo factorka ah exercise-ka ama shaqada qofka uu qabto tusaale dadka qaar waxnaan ama suuxi waqti badan beel wayaan ama exercise badan sameeyaan cunadii badneed ama glucose badneed ee jirkeeda soo galay dhibaato kuma keeni karto haddii aan ahay qof xalaal ah oo wax badan oo jirkeeda metabolism ku sameeya ama burburinaya maxaa kaloo jirka la xiriirto dadka qaar metabolismkooda inuu islow yahay ama ha burburinta jirkooda cunada burburo inay aad yartaa waxaa laga yaabaa qofkaas isagoo glucose-tiisa inay xad dhaaf aan wax badan qaadanin haddana inuu obese yahay ama inuu wacyi waxaa factorka saameyn ku yeelan kara maxay tahay xanaanka jirka cunada burburinaya ayaa waxay tahay hab islow ah jirkiisa dufan badan ma isticmaalaa qofkaas marka mar asagoo dufan badan qaadanin haddana caynina kaca waa haddii uuna exercise badan sameyn marka mar metabolismka islow yahay karbohaydratka qaata ayadoo yartaa xitaa waa cayili kartaa dadka dad waxaa jira marka ayagoo cunno badan cunaan oo karbohaydrate badan cunaan oo glucose badan cunaan haddana ay caatay taas ay sar inuu weydiyo taas maxaa kale dadkaas maxay tahay saameyntu waxay ka yimaado cunnada maahan jirkooda metabolismka jirkooda uu sameynaa ayaa fast ah dhaqso ay jirkooda wax burburin karaa oo dhaqso ay karbohaydratekii aan u isticmaalaya jirkiisa qofkaas uu guba u diyaarsan yahay ayaa fasting ah marka si dhaqso badan ay glucose loo isticmaalaya xitaa qofka isagoo agsa sameynaynin oo haddana wuxuu noqon karaa qof caate ah sidoo kale dad cunnada yaciid marka laga hadlaayo waxyaabaha la fiiriyo waxaa ka mid ah caloosha hadda dad waxaa jiro cayilin oo qaliin lagu sameeyo qaliinka oo caloosha inta la jiro lagu soo xiraa esophaguska ama gurimareenka iyo caloosha loo soo yareeyo si caloosha loo soo yareeyo sababtoo ah markii qofkaasi uu dhowr jeer uu dhaco cunadii wuxuu dareemaa fullness calooshaas waxaa la yidhahdaa gastric bypass maxaa sababta loo sameynaya maxay tahay gastric bypass waa in calooshii la jaro oo calooshii dhan meeshii laga soo yareeyo laga soo jeedo afka hore esophaguska ama tubada gurimareenka lagu soo xiro maxaa la rabaa qofka si uu u caatoobo wixii uu laqi lahaa carbohydrate uu cuni lahaa yareeyo marka qofkaas waxaa dhalada cayilkiisa in laga yareeyaa cunno badan u qaadana marka caloosha aa laga yareenaya wax badan cuni miisaanka marka macnaha waxaa loo hadaf in miisaanka la yareeyo caloosha soo yareeyo sababta miisaanka ugu yareeyaa qofkan factorka saameynta kule inta ka imaaday wax badan u qaadanaya glucose badan u cunaya marka maadaama khaliil caloosha ku sameeyay weelka caloosha badnaa weynaa waa la soo yareynaya dhowr jeer qofka hadduu la qabo caloosha buuxsanaysaa marka kaasna factorka muxuu saameyn ku leeyahay inta glucose uu qofkaas liqaaya marka maxaa jirto marna waxay ka imaanaysaa cuntada aa cuntay marna waxay ka imaanaysaa jirkaaga siduu wax burburinaya marna soo kale waxay related la tahay intee la aad jecessi ninka inta intaas wax ka muhiimsan oo dhanka dhaxal hidasidaha oo imaan kara qofka dhanka cayilka haa obis family history hadduu qofka leeyahay wax uu dadka uu macnaha familkiisa awgiisa aabihiisa ayadiisa awadiisa haddii family history uu jiro obis jaas waa qofkaan obis uu noqonaya oo dhaxalka uu galaa obis family history way jirtaa waxyaaba kaloo sabab kale way jiraan oo culeex sababto ah sokorta waxay keentaa weight gain iyo weight loss sabab inuu miisaankiisa daciifo ama cayilkiisa inuu bato marka lasii fiiriyana dib lasii fiiriyo waxay la xiriirtaa glucose isla jirka u maareeya marka dib lasii fiiriyo sokorta jirka siduu u kala xareeya ama u isticmaalayo ku xirantahay marka obese ama cayil ama cunto sidee ula xiriirtaa cayilka waa sidaas dadka raba inay cayilaan ayagoo caate ah وهذا مرة بعند بدن عنان لا يابين أفر جرح عنان ولد دريما إني عاتيين أفر ساعة كذا معه وهذا ساعة أفر جرح عنان سيد معي لندرتي وولد أنا عاتيه تذكر أنت بنزل كله أفاسته وهذا يا بهتا أنا جمعت سنين بين أفر جرح عنان هذا عاتيين أنت أنت بدن هذا حريرك وكمان أفر جرح عنان أتاعي واحد بدن إيه قال أنت بدن إيه قال وكذا أتاعي متابلزم كله أفاسته لازم كيان برتا dadka caylan ee waa inay saacadayaan oo cuntada hamad iska jarayaan faktarka inay jaar waxay inta la yaaba marka hore inaad isbaartid diyaar jirka inuu macnaha si yahay ma fiican tahay muhiim ah marka cunto cayl la xiriir kartaa dhanka ilaahay wuxuu diinaa dhanka hore stress iyo qofka inuu maskaxdiisa kale caynka saameyn ku leeyahay stresska saameyn ku yeelan karaa sababtoo ah jirka waxa ku dhacay waxa la yiraahdo hormonal changes waxa isbedelaya shaqooyinka hormoonada qaban jireen hormoon marka uu dhaho wax jirkeena ka dhex shaqeeyo macnaha oo dhaliska bixiyo ama shaqooyinka qabto tusaale
insulin to kale waa hormoon insulin magaca hormoon hormoontaas waxay shaqada tahay in glucose ay xaaso sokorta ay xaaso marka ka waran hormoon inta dadku insulinti ay shaqeyn way isbedel ku dhaco kawra marka stress uu sheegay qofku ku keen kara hormoon jinsi hormoonada iyo hormoonada baan ina ciidan iyo ina catuna labada ku keen kara loo xajtu waxa stress isbedel stress inta jira dad waxa jira macnaha kee buulaan ina wax buugaan wax cunan dad badan oo jira yes waxa la قفص كله محلو محناي لخاي يقفصوا أنا حنا لخاي هذيك بعد أنا ساقنا حاجة قف قصوا مثلا قف كيسوا بقري أري سوق الحياة مهم كي بحاول بدو حاجة ما بدو إله الفولي أقصي اسمه كان ويدجن هذا أقصي اسمه كان ويدرس ده كسر المتبلمس كيسوا وهو سيعمل لنا سوسة ريالنا قفص متبلمس كيسوا النار خاصة معها سلون معها نار قفص وقف وفي عمر دقسن وعين كرا دقسن وعاتون كرا بس محو اسكا مادام متبلزم كي وصحي هاي ومتبلزم كي النورمال هاي محو حديدها قفا سقطت وخلاها بس ما تقفا نقول اسبوع عن طلع اسكي انا ما خليها اسكا شايا ها ميزان انت ميزان اي عيش كرا قفك عطا مو استتجابي ميزان كما كعيسى ساسو كرا هاد هاي هذه هالاسبوع سقطت 5 كيلو اسكا كرا هالاسبوع ده سقطت 5 كيلو اسكا كرا وها انا بس waxaan ta carbohydrate kaas maxaa keenaya marka metabolism kayga waa normal oo dhib uma aha laakiin marka metabolism kaaga duu fast yahay wax badan aan cuntin wali xaal usii baahan inaa sii bilis cuntada si metabolism wax u bilis adaas inaa cayshid waa hadii metabolism kaaga islu yahay oo aa cayilin tahay oo islu metabolism kaaga yahay glucose tanalis excess na xasmis